Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada saaxiibayaal, halkaad iga daawanaysaan ama igala socotaan waa YouTube channelkay iyo Facebook page-kaygaba. Haddii aad ku cusub tahay channelka, kusoo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xiran page-ka iyo channelkaba insha Allah. Muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay ama sidii aan hore idinkugu ballan qaaday, waxaa maanta idinla wadaagi doonaa qaabka ay u xareysanayaan dadka lamaanaha ee caruurta haysta insha Allah. Waxaan idin tusi doonaa insha Allah stepka min bilow ilaa dhammaad hadduu ilaa yiraahdo. Wixii aad su'aalo qabtaan waxaad igula wadaagtaan commentiga. Haddii insha Allah muuqaalku uu ku cajabiyana like noo saar, subscribe-tana naga ilaabin hadduu ilaa yiraahdo. Muuqaalka insha Allah hadda ayuu noo bilaaban doonaa, la socod wanaagsan. marka ugu horeyso waxaan imaanaynaa googleka markaan imaano dv lottery aan ku qoraynaa. dv lottery markaan ku qorno wuxuuna keenayaa pagekan markuuna keeno kan ugu horeeya electronic diversity visa program ma aragtay ku dhufanaynaa. kadib markaan ku dhufano pagekan uuna keenayaa, waxaan kasii dooranaynaa begin entry markaan doorano xarfahan meesha nooga muuqdaa gelinaynaa insha Allah. markaa gelino wuxuuna sii geenayaa pageka ma aragtay u baahannahay oo sheekada meesha ka bilaabanaysa insha Allah. halkaan sheekada ka bilaabanaysaa. soo marka qofka ugu horeeyo ee isku buuxinayo ma aragtay rabo inuu isku bilaabo haddii ay noqoto muxuu ahaa aabaha ama hooyada ma aragtay pagekan ku bilaabayna insha Allah. marka waxaan isku buuxinaynaa last name-ka sidii hore u wada ogeedeen waa magaca awowga, and then magaca koowaadna waxaan ka dhigaynaa sidoo kale isagana qofka magaciisa koowaad waa first name-ka meesha ay dhahaan. magaca middle name-kana waxaan leenahay magaca aabaha waaye, so magaca aabahana waxaan ka dhigaynaa Axmed aan iska leenahay. so marka magaca ilmahaaga inaa xasuusnaatid waaye. magaca first name-ka hadda waxaa ka dhigan Aadan, middle name-ka waxaa ka dhigan Axmed, so last name-kana waxaa ka dhignay muxuu ahaa Cali. marka hadhow markaa ilmaha buuxinaysid magaca oo maaragtay ilmahaaga iyo magacaaga inay islahaadaan waayo, oo maaragtay hebel inaa isbadalahaadaan. hadhow haddii aa wax qaldan aa gelisid waxay noqonaysaa yacni wax inay kaa khaldamaan oo caddeyn in lagaaga baahdo. marka insha Allah isla socono. waxaan leenahay inta mail muxuu ahaa intana waxaan leenahay waqtiga dhalashada. badanaa Soomaalida 0101 ay ku qortaan 0101 kaas isaga buuxinaynaa 1990 ayaan leenahay. magaalada qofka aan ku dhashan waxaan ka dhigaynaa Mogadishu ama Nairobi, meesha rabtid aad ka dhigi kartaa. yani meesha aad maaragtay aad ku dhalatay, meesha rabtid ma ahan, sorry, meesha aad ku dhalatay, magaalada ku dhalatay. and then intana waxaan ka dhigaynaa wadankii aad ku dhalatay. meeshaan mar walba yes ku ahaanee. soo marka sawiradan ani aan isticmaalayo sawirkayga la keliya waaye, because tusaale ahaan rabaa idinku sii baadho, laakiin aad markaa xareysanaysid sawiradaada saxda inaad gelisid oo aadan ku soo celinin sawirada. tusaale ahaan ma aragtay aan idinku siinoyaa. marka adresska meesha aan ku nooshahay waxaan leenahay inta Jaalasiyaad Street, city-ga waxaan leenahay Mogadishu, state-ka waxaan leenahay Banaadir, postal code-ka no postal code, intana Soomaaliya. kadib waxaan leenahay phone number-ka optional waa ka tagaynaa. wadanka maanta ku nooshahay Soomaaliya ka dhigaynaa. phone number-ka optional waa ka tagaynaa. intana email-ka waxaan ka dhigaynaa email isticmaashid oo markaas kuu shaqeynayo. waa inay islahaadaan email-ka inta gelinaysid iyo email-ka inta aad gelinaysid. hadday islahaan waayeen wuu kaa diidaya hadhow oo wuxuu ku leeyahay wax qaldanaa gelisay oo calaamad gaduudan oo kusoo saaraya meesha. and then inta waxaan leenahay high school degree inuu qofkaan haysto, waa married, hal cunug inuu haysto. haddaa laba cunug haysto laba, haddaa saddex haysto saddex. soo hadda tusaale ahaan aan idinku siinayo halka cunug meesha aan geliyey. and then continue markaan dhahno wuxuuna keenayaa pageka labaad. soo qaybtan waxaa ku buuxinaysaa spouse name, yani xaajiyada magaceeda ama xaajiga magaciisa. haddii pageka hore aad xaajiyad ku bilowday, pagekan waxaa ka dhigay xaajiga ama saygaaga. last name Omar aan leenahay, first name
asma iska leh, middle name abdi iska leh, waqtiga dhalashada 01/01/1999, female, meesha ku dhalatay Mogadisho geli, country Soomaaliya, sawirka xaaskaaga ama aragtay gelinaysa. Ani waxaan isticmaalaa isla sawirkay, waxaan tusaale ahaan idinku tusinayaa. Meeshaan waxaa laga rabaa marka inaad gelisid cunugaaga number 1 haddii aad 2 cunug gelisay. meeshaan child number 1 kuwa hadhow markaa kan dhameysid wuxuu ku leeyahay child number 2 saas u soconaa marka. Hadda marka child number 1 last name ka child number 1 kaaga maxaa u noqonaya marka magaca aabaha u noqonaya last name ka oo noo ahaa hadaatay Axmed aanu ahaa. First name ka cunugana wuxuu noqonayaa cunugaaga, yani haddii gabar ay tahay wiil uu yahay first name kiisa gelinaysaa. So first name ka meeshaan waxaa ka dhiganaa inuu wiil yahay, marka waxaan dhahaynaa Khalid ama middle name kan wuxuu noqonayaa magacaaga adiga hadaatay wuxuu ahaa Aadan. Marka waqtiga ilmaha dhasheen, ilmaha naftirkooda 01/01 la ugu buuxinaynaa 2008 camal ama 2009 iska dheh inay dhasheen ilmaha. 2009 qofka dhashay hadda maanta waa 12 jir I guess may 13 jir waaya 2022 waa sii dhamaan sabo. And then male kadib cunuga meesha ku dhashay Mogadisho Soomaaliya, cunuga sawirkiisana sawiraa laga rabaa, sawir saaskiisa saxan yahay. Kadib continue haddii 2 cunug aa haystid meeshaan hoos usii soconaya number baby number 2 baby number 3 4 5 6 inta number aa gelisay. Tan waxaa idinku tusayaa kaliya in maaragtay tusaale ahaan aa idinku tusiyo. Kadib continue waa leedahay. Informationka inaa iska saxido maaragtay kaa codsanaya. Kadib informationka iska saxaysaa oo wax inaadan qaldin ku taagso. Kadib submit dheh, wuxuu ku siinayaa confirmation number kan meel dhigo, ha iska dhuminin. Haddii uu kaa dhumane waa soo celi kartaa, waa haddii aa haysatid email sax ah. Marka waxaan rajeynayaa inay wada fahanteen. DV Lottery 2024 wuxuu soo baxayaa May 6 2023. Please markale idinku celinaya haddii hal mar aa xareysa mar labaad isku dayin, haddii kaleete uu maaragtay kaa gubanaya oo maaragtay disqualify noqonaysa haddii aa hal mar ka badan xareysid. Mar kaliya lagu ogolyahay inaad hal mar ka badan xareystid waa mar aad xaajigaaga ama xaajidaada aad xareysanaysa. Xaajida ayada gooniya kugu xareysanaya, adigana xaajida gooniya ugu xareysanaya. So labadaas mar aa 2 mar lagu kala ogolyahay. Hal qofka maaragtay primary hal mar bisa noqon kartaa. 2 mar primary haddana qadid disqualify noqonay. Xarijina inay fahanteen oo aad ka wada bogateen. Aad idin salaamaha. waa tahay saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa inaad ka wada bogateen oo aad fahanteen. Please markaad maaragtay information gelinaysaan, informationka sidiisa maaragtay wada geliya oo waxba ha khaldan insha Allah. Meel banaan ha ka tagina. sawirka siiba maaragtay haddii uu maaragtay size-kiisa khaldan yahay idinkama qaadanayo, idinkama yeelayo. size-kiisa iska sax insha Allah. wixii su'aal aa qabtaan sida hore idinku sheegay comment-iga noogu qora. haddii maaragtay aad wax fahmi waasan oo aad rabtid inaad direct ani igula hadashid, Instagram-ka igala soo hadal hadduu ilaa yiraahdo. Instagram-kayga waxaa igu qoran Cabdalla Muxya insha Allah. aad baa idin salaamaya dhammaantiina. guul baan idin rajeynayaa. waana mahadsantihiin sida wacan iyo fariimaha maaragtay comment-yada quruxda badan ay reebtaan haddii dhiirigelisaan. aad baan idinkaga mahadcelinayaa. idin ogsooni insha Allah. aad baa idin salaamaya insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.